بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا حمادك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه نعمة الإسلام والإيمان. ثانيا waxaan maanta aan soo booqanay maama xaajiya oo xanuunsan oona laga hayo lugtaas oo hadda aad u jeedaan. maamadan waxay xanuunsan tahay muddo 2 sano ah ay xanuunsan tahay. xanuunkan isbitaal la geeyo dhaqaatiirtu waxay sheegeen inay u baahan tahay maqaar in la saaray u baahan tahay. maqaarkaas la saarayana lacagtu ku bixayso waa lacag $1,500 ku bixayso. $1,500 maanta maamadan ma awoodo mana hayso. waa dareemi kartaan maamo oo iyadaba waxay cunto la daala dhacayso oo buushkan u jeedaan oo dhabarkeeda ka muuqdo degan. waxa waaye $1,500 maanta haday haysan lahayd waxa waa intaan ma aysan isla soo gaari lahayn. ilaahay subxaanahu wa ta'aalana $1,500 ma uusan u waynin laakiin anagoo nagula imtixaana marka ummadda Soomaaliyeed muxsiniinta ah meel walba ay joogaan dal iyo dibad waxaan cod dheer aan ugu baaqaynaa inay maamadan iyadan ay xanuunsan tahay oo lugteeda sidaad u jeedaan sidaas ay tahay oo muddo 2 sano ah oo isbitaal walba la geeyin la leeyahay maqaar in la saaray u baahan tahay oo qarashka ku baxayaan waa $1,500 aysan awoodin. maanta $1,500 hadaan anaga aan kacno oo Soomaali ahaan aan u kacno maamadan u gurmano min $0.5 min $1 hadaan iska soo aruurino maamada maanta waxay u qabataa maanta hadad 25 sent u soo dirto $0.5 u soo dirto hadda $1 u soo dirto maanta waxay u qabanaysaa. ummadda Soomaaliyeed muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu baaqayaa inay maamadan ay soo garab istaagaan oo xanuunkaas oo haayo oo hadda u jeedaan lugtaas ah oo $1,500 ku bixayso inaad ka bixisaan. qofkii hal qof haduu ka wada bixin karo alxamdulillah hadii qayb ka bixin karto waxa way sadaqadan yaraan iyo badnaan midna ma gasho haday yarta iyo haday badan tahay waa un sadaqo. marka ummadda muxsiniinta ah waxaan leeyahay cod dheer aan ugu baaqayaa in maamadan oo xanuunsan dhibaataysan dhibkan ilaaha ka qaadi karo laakiin waa anaga wala imtixaanaya waa in anaga sabab aan u naqanaa oo maanta aan u kacnaa oo waxaan u soo aruurinaa oo aan ka bixinaa $1,500. marka insha Allah kulli anaga mar walba waxaan u taaganahay inaan dadka masaakiinta ah iyo agoomada dadka dhibaataysan inaan idin soo gudbino oo aan idin la soo wadaagno tabarteen intaas ay tahay anagoo waxba aan ka raadinayno aan raadinayn ajir inaan ka helno. marka anagana mar walba insha Allah waxaan diyaar u nahay inaan idin soo bandhigno dadka dhibaataysan oo xanuunsan insha Allah garab istaagno waxa idinkaga baahan yahay. marka insha Allah intaasaan hadalkii aan ku soo ganaanada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.